waxaa maanta maxkamad la hor keenay qaar ka mid a dadkii Soomaaliyeed ee dhawaantan lagu eedeeyay inay lunsadeen lacaga loogu talagalay carruurta iyo weliba dadka tamarta yar xilligii koronaha taasoo gaadhaysa 250 milyan oo doolarka Mareykanka ah sida ay wararka aan ku helayno ayaa waxaa maanta la hor keenay maxkamad 6 qof oo Oromo ah iyo 8 Soomaali ah ayaa maanta la keenay maxkamadda federaalka dadkaas ayaa kulligood ahaa dad waaweyn oo qaata lacagta dawladda waxayna deganaayeen guryaha dawladda ay bixiso 14 qof oo iskugu jira Soomaali iyo Oromo ayaa saaka la keenay maxkamadda federaalka Minneapolis dadkan qaarkood ay yihiin dad waaweyn ayaa qaadanayay lacagta howlgabka dadka la siiyo dadka ayaa loo haystaa inay ku lug lahaayeen dadkii dhacay lacagta raashinka carruurta qaar dadka ka mid ah hore ayaa loo xidhay damiinna ayay ku joogeen waxaana hore looga qaaday faro iyo sawirro arrinta halista waxay tahay iyagoo qaadanaya lacagta dawladdu siiso dadka howlgabka ayaa akoonadooda waxaa dhex martay lacag 100,000 oo doolarka Mareykanka haddaba Cabdixakiin Xarta Sheekh oo kiiskan inta badan ka warhayay sidoo kale ka faaloonayay ayaa ka warbixinaya waxaana uu sheegay in dadkan maanta la hor keenay maxkamadda ay iskugu jiraan Soomaali iyo Oromo sidoo kale Cabdixakiin Xarta Sheekh ayaa sheegay inay dadka yihiin dad howlgab ah sidoo kale qaata lacagta ay dawladdu siiso dadka howlgabka ama dadka waaweyn haddaba waa kan Cabdixakiin Xarta Sheekh oo ka warbixinaya dadkan maanta la hor keenay maxkamadda maanta waxaa maxkamadda federaalka la keenay 8 qof oo Soomaaliya iyo 6 Oromo ah maxay ahaayeen dadkaasi waxay ahaayeen waa 8 qof oo Soomaaliyeed iyo 6 Oromo ah waxaa laga keenay Scott County, Hennepin County, Dakota County, Ramsey County intaas laga soo kaxeeyay dadkani haddaba maxay ahaayeen dadkani ma dad dhalinyaro ay ahaayeen ma dad waxaan ku shaqale bay ahaayeen maxay ahaayeen dadkan dhammaantood waxay ahaayeen dad beeshin ah oo Oromo iyo Soomaaliya oo qaata lacagta dawladda dad howlgaba degan guriyada dawladeed dadkan qaar baa maalintii hore laga qaaday sawirro qaarna maanta laga qaaday farana waa laga qaaday dhammaantood waa loo tarjumay maanta tarjumaan ayaa u wada hadlaya ma jirin qof haba yaraatee luqadda Ingiriiska ku hadlayay waxayna ahaayeen odayaal iyo islaamo beeshina kulligood hal qof oo da'yari kuma jirin kulligoodna waxay qaadanayeen lacagta la yiraahdo SSI-da waxayna deganayeen guryaha dawladda okay dhammaantood maysan lahayn haba yaraatee wax loo yara dhammaantood wax loo yara may lahayn kulligood dawladdu waxay u qabatay public defender looyarada dawladda ee publica maysan awoodin inay looyara qabsadaan marka loo eegay income-kooda sidaa darteed dawladda marka aadan awoodin inaad looyar qabsatid waxay kuu qabanayaan public defender ayay dawladdu kuu qabanayaan dhammaantood waa laga wada tarjumay dhammaantood dadkani waxay ahaayeen waa dad ay qaadanayay guryaha dawladda deganaa maanta markii maxkamadda la wada keenay qaar hore waxaa looga qaaday sawirka magshaadka la yiraahdo waxaana laga qaaday faro qaarna maanta ayaa laga qaaday dadkaas beeshinka ah xaafadaha aan idiin sheegay ayaa laga soo wada kaxeeyay sidee haddaba wax u dhaceen maanta waxay wax u dhaceen 8 qof ee Soomaalida ahaa iyo 6 Oromada ahaaba waxay cadeeyeen inay la shaqeyn doonaan dawladda waxay u ballan qaaday hadday sheegaan sida wax u jiraan in iyaga wax dambiya aan lagu oogi doonin dhammaantood akoonadooda ayaa la isticmaalay waa dad beeshina waxaana lagu sarifay lacagyo aad u badan ayaa lagu sarifay akoonadooda ayaa la isticmaalay dhammaantood waxay wada qaateen dhiilkaas inay dawladda la shaqeynayaan sidaa darteed dawladda isla markiiba waxay u qabteen maxkamado kale oo ay imaanayaan maaha iyaga maxaabiisa inay imaanayaan bacdamaa ay dad beeshina yihiin oo dad waaweyn yihiin waxaana aynaysan aqoonin haba yaraatee dadka waaweyn qiil badan ayay helayaan oo ah qofkan inaanu aqoonin haba yaraatee wax luuqada
jeegana adeer igu sarfi eeda igu sarf lagu geliyay laakiin dhammaantood bacdama ay yihiin dad beeshina oo waliba dad aad u waaweyn oo daa ku jiray dawladdu way fahmi karaan in dadka beeshinka يعني لا أبيوس قرية قاركود أو حيالا بدن laga samaysto qaar baa iska dhaaf dadka beeshinka yani qaar baa iska dhaaf akoonkooda in wax lagu sarifte waxa jirta khiyaamo ku dhacda oo sometimes akoonadooda iyo sharciyadooda ay dadka marka ehelka u ah ama marka haya ama marka la jooga ay isticmaalaan iyagoo ka faa'iideysanaya xaaladda dadka marka waxa jira sharci ah ilaalinaya dadka beeshinka vulnerable adult baa la yiraahdaa oo ilaalinaya dadkaas يعني أن وحبة إسكعلين كرين أما حوق أهان هالنقطة أما مسكح أهان هالنقطة شرعي أيلين شرعي هو فدرال مركز سيدا درتيد محكمة فدرال كأي ما أنت وحي أديك سنة أو أي راعي شرعي غاس داد كاني قيل أيي هليان لما أنتو ماي لما حيرين فرأي يصير بالغا قال قيل أيي هليان لما أنتو قيل كاس أو يعني إني سن أقوني نمبر 1 لغة إنجليزية إن أيسن وحبة قرين إن يعني جاء كاني قف جرجود الجوجي أما هيها النقطة أما إيركيسها النقطة دبك قار كمدا في ريا ما أنتو حيارها ولا يابي وحا كمدا دبك قار كمده وحا وجر ريكوركا إن أيسن إسكم مسؤول هاي أو قف مسؤول كيه waxaa jirta qof aan kirada gurigiisa bixin karin oo rekorka uu jirto waxba la weydiin maayo qofkaas kirada gurigiisa xitaa ma bixin karo lacagta dawladda u soo dhaxda ee qofkaasi qof baa u qaabilsan oo u kantaroolaya intuu korontada ku bixin lahaa intuu telefoonka ku bixin lahaa intuu kirada ku bixin lahaa waxa soo dhan يعني maamula gaar ah buu leeyahay waa qof eelkiisa ayaa la leeyahay hadii wax kugu dhacaan emergency contact يعني قف كان emergency ku ah oo la wacaya iyo qof kana mas'uuliyad qaaday dadka waxa ku jiray qaar mas'uuliyadoodii dad kala hayaan horta kuwaas tarabal way bigalayaan okay sideedan Soomaalida iyo lixdan oramada ah maanta iyaga dawladdu caadi u cadeeyeen wax dambiya lagu soo oogaya ma jirto iyaguna waxa ay maanta sheegeen inaysan wax aqoona waxaan u lahayn teeda kale lacagta markii laga soo saaray akoonka akoonadooda qaar ba hadda waxa ku jiray overdrive bay ku jireen qaar ba yani dadka waaweyn oo ogtihiin dukaama intay tagaan waxba ma iibsan karaan yani wax ma yani sameeyaan waxaas ka arkooda sometimes qaar ba overdrive ku jiray marka dawladdu waxay garaysteen in dadkan beeshka la khalday wax dhacda wadanka waa la sameeyaa dadka beeshka waa la abayusa wixii la doonaa lagu sameeyaa qaar baa la garaaca qaar baa la dilaa qaar baa akoonadooda iyo sharciyadooda qaar baa sharciyadooda kaliirkaad lagu dalbada waxyaalaha cajiibka waxa weeyaan gabar kamid ah hadda dadka meeshan ku jira hawshan ku jira ninkeeda oo wadankan ka cararay oo laga masaafuriyay sharciyadiisii ayay waxay ku furtay akoono lagu sarfa lacag shakhsigaasina maba joogin wadanka oo laga masaafuriyay oo waxa uu galay Canada dad iyagu jeelasha qaarkood ku jira ayaa magacyadoodii la isticmaalay dad intay ayaa la isticmaalay caruuro aan wadankaba joogin ayaa la yiri cunta la siiyaa oo wadanka ka maqnaa marka waxyaalahaas oo dhan dawladdu waxyaalahaas oo dhan maanta way ka fakareen waana ka fariisan arrintan waa arrin la soo falanqeeyay oo la soo dhameeyay laanta dambi baarinta wadanka Mareykanka FBI dhammaan wixii cadayna ay u baahnayd oo dhan ay dawladdu u baahnayd miiska la saar markii ugu horeysay Minnesota Department of Education ayaa kiiska furay markii ay xal ka keen waayeen waa sida ku qoran newska oo xeerlaaliyaha dawladda US Attorney ee sheegay markii xal ka keen waayeen ay ka keen waayeen waxa ay dalbadeen Minnesota Department of Education ay dalbadeen in laanta dambi baarinta wadanka Mareykanka FBI ay soo gasho sida aad ku aragteen qoraalada waliba Fox News ku jira FBI di baaritaankii markay galeen isla markiiba waxay ogaadeen in wax way qaldan yihiin oo ay dhacay aad iyo aad u balaaran sidaas ayay hawshu ku bilaabatay ka bacdi dadka January 20 dadka badidooda waxa la galay January 20
sanadkan aynu ku jirno laakiin January 18 habeenkii dahabka la soo geliyay oo ah January 15 gabadhii la guursanayay dahabkeeda la keenay January 18 ayaa afar qof oo kamid ah dadkaas loo tagay oo laga soo gurtay alaabadii dadka qof kasta oo Soomaaliyeed dhibkiisa uu qarsanayay ayaa laga soo gurtay kabacdi January 20 searching warrant bay soo goostay FBI dhammaan waxa la galay guryihii iyo businessyadii wixii markaa kadib maantaas guryihii iyo businessyadii bidhinadii la iibsaday ayaa la qabtay isla habeenkii marka intaan la galin subaxii isla habeenkii akoonnada dadkaas oo dhami waxay ahaayeen waa la joojiyay wax lacag laga bixin dawladda xanibatay January 20 wixii ka dambeeyay ilaa iyo haddeer oo bisha 20keedii dadkii la soo qabqabtay oo la jaaj gareeyay dawladdu waxa ay wadeen ugaarsi ah in dadka lagala dago gawaaridii qaaliga ahay imise qof oo Soomaaliyeed oo baabuurkii wata oo wadada maraya ayaa lagala dagay familyo gabadh iyadoo adeeganaysa kaafurka adeeganaysa oo ciyaalkeedii saaran yihiin ayaa la qabtay lagala dagay laakiin waxay sameeyeen dawladdu way soo qaadeen gaarbe ugu yeereen gurigeedii iyadii ciyaalkii seefa keenay tan iyo maalintaas FBI du habeenna ma seexan maalin ma seexan baaritaanku waa socday ilaa iyo hadda waxyaalaha la yaaban yahay waxa kamid ah lacagtan 200 milyan ee dollar ee baxday ayaa waxa lagu wareersan yahay meesha martay qaabo badan ayaa lacagtu ku baxday sida aan idin sheegayay ninkii joogay Grand Focus faarga joogay ee xawaaladaha tawakkal iyo kaah iyo taaj iyo waxaas oo dhan wakiilka ka ahaa wakiil la galiyay xadka Canada oo gabar qaaday wadanka ka baxay oo ka baxay oo wadanka galay ninkaas wuxuu sameeyay dadkii magacyadooda meesha ku jireen magacyadoodii isagu wuxuu ahaa nin heerkuwaadha yani jooga magacyadoodii buu isticmaalay wuxuuna awood u lahaa marka lacagta la diro xawaaladaha baraanjiyadu marka ay diraan wuxuu sii marayaa heerkuwaadharku lacagtaas hadday badato dukumenti baa laga rabaa waa la xanibaya laakiin isagu wuxuu ahaa nin intaasoo magaalo isku haysta awood buu lahaa inuu sii daayo lacagta dadka qaarkood waxa uu sameeyay bacdama sharciyadoodii meesha ay ku jiraan waxa uu soo daayay telefoon biribe oo $10 go smartiya lambarkii qofku ka saaraya taxi message marka lacag aad dirto wadankan waxa ku soo dhacaya taxi message ordaya si taxi message kaas aan u arkin dadku wuxuu ka saaray numberkan uu soo daayo galiye sida darteed lacagta ugu fara badan waxa saaray ninkaas lacagta qaab kalena way ku baxday oo waxay sameeyeen waxay dadku ku dhex qariyeen dhar huudheeya oo ay dirayeen oo iibinayeen iyo alaabo la shib gareynayeen ama gaari ha noqoto ama waxa noqoto ayaa la geliyay oo lagu diray ragga ugu badan ee hadda ragga ugu badnaa laba kamid ah Cabdicasiis iyo Maxamed waxaa la qabtay bishii Ramadaan isagoo baasaboor kala dalbaday isaga waxa lagu soo ogay dambi kale oo xabsi 5 sano oo gooni ah oo ah inuu fraud immigration uu sameeyo baasaboorka Cabdicasiis oo isagu ka dambeeyay sidoo kale Cabdicasiis waa 28 milyan Maxamedna waa 28 milyan inta kale waxa weeyaan 10 milyan 18 milyan iyo waxaas weey sida darteed dadkan maanta la keenay dhammaantood waxay la shaqeynayaan dawladda haddaba waxaan rabnaa inaan ogaano 600 ee qof ee sabiinada loo diray maxay yihiin 600 qof ee sabiinada loo diray qaybo badan bay u kala baxayaan qof kasta oo programkan ku jiray wuxuu naas muujiyay qof ehelkiisa oo uu ku yiri hay inta soo saar inta sarif kan samee saas ayay ku soo galeen qof walba laakiin haddeer waxa ka taagan magaalada khaasatan suuqa karameel haddeer waxa ka taagan in qof waliba qofkii kale uu dhiibay uu ka laadlaado taasi ma shaqeynayso ma dadka waaweyn mise dadka dhalinyarada ee aqligoodu saliimka yahay ee wax xanuun aanu rikorka u jiray qofka aqligiisu saliimka yahay dawladdu kama yeelayaan waxaan qofkii aqli leh waa in uu yani isaga dhiil qaadanaya uuna waramaya waxa kaloo jirta arrimo kale aad iyo aad u yaab badan baa jirta gabadh aan aqaano oo ooyaysa ayaa wada kulan waa la fariistay gabadhii waxa jira Cabdixakiin oo dhibaato weyn baa ugu dhacday arigaygan idin la hadlay ayaa gabadhii loo yarugay maraba inaan magaceeda halkan ka sheegay maxay taan ku yiri dhibaatada kugu dhacday waxay tiri waa la soo wacay waxaan ku hadlana ma garanayn bilaa loo yarna ma hadlayaan
okay sidee wax u jiraan waa kaxay lawyer baan sidee wax u jiraan ay ii sheegtay waxay tiri qof baan u shaqaynayay weekii waxaan shaqaynayay 3 bari 3 bari aan qofkii shaqaynayay 3daas bari wuxuu isiyaa $5,000 waa $5,000 xisaabiya hadaba bishii 30 ka badan ay qaadanaysaa 30 ka badan ma dhici kartaa qof cunto qaybinaya oo banaan taagnaa in payday loo siiyo 3 days oo yani 3 days kaas waa xataa full time maaha waa 6 hours ma dhici kartaa in loo siiyo $5,000 mushahara no sidee ayaa wuxuu dhacay baan ku yidhi waxay tiri 5,000 marka la soo qoro 2,500 ana qaadanay 2,500 qofkii shaqada isii ayaan u celinay qaabkee ugu celinaysaa baan ku waxay tiri sometimes cash up sometimes na sell cadeyn waad haysaa Soomaha okay waxa jira jeega kale oo personal ah oo aan sarifay oo ah yani inoo soo sarif shopping aan iska aadi jiray oo waliba shopping markaan aadano akoonkayga aan ku sarifo kaarkayga aan marsanay okay waa kaxay lawyerkii baan u geeyay lawyerkii markaan u geeyay lawyerkii talada ugu fiicnay dusi waa nin aad iyo aad u fiican talada ugu fiicnay dusi wuxuu ku yiri nimanku markay ku yimaadaan adiga wada tageena anaa ku matalaya laakiin talada aan ku siinaya waxay tahay siday tahay wax u sheeg wax dambiga ku imaanay ma jirto adigu miyaa jirtaa buu yiri wax aad saxday oo aad side lahayd noobit balaay baan shaqaalaha okay wuxuu sida ay tahay wax u sheeg sidii wax u jiraan u sheeg sidii ba u sheegtay عدين محد هيسا إنه يعني دكان كاسان كأدي جنجر كاسان كأدي جنجر كاسان كأدي جنجر عدين محد هيسا إن قدر تكاش هذه السنة كله وده كان شيء هو بري حين قاعدة تقيلة إن مرخات فرصة كرمال هذا ما أنت وحكيت عن ضدي قارة أساسية جدا قف ولا بساس وكبرية يعني ضدك وايس وده هيسا أنت نادي قارة أنت نادي قارة ما أنت ما تاجنا أنت نادي قارة أنت نادي قارة ما أنت واحد تاج أنت هاي حالات قلبسن أو قف بلو النفط iyo sharciga badbaadi meeshan waa lagu halligmay qoysdan oo 7 qof mise 8 qof oo ilmo jaamac la yiraahdo iyo hooyadu ayaad arkaysaa registerkaymi inay ku jireen qof familygooda galiyay dhibaatada inaga maanta in haysta waxay tahay hooyo iyo ciyaalkeedii oo dhan oo ku wada jira ayaad arkaysaa hooyo aabihii ciyaalkii oo wuxuu ku wada jiray dadka fiiri dadka beeshinka ah dad baa waalidkood deeqadan galiyay hadda gabdho waxaa jira aan aqaano oo hooyadood iyo aabahood xitaa la xiray oo sonkor qab oo dhika qab oo macaan qab oo wax walba qab magaalada joogan waa la wada yaqaanaa dad baa jira waalidkood intay soo kaxayeen mudaharaadkii keenay oo markay mudaharaadkii keeneen iyagu banaanka ku jiray oo waalidka ay tabeelayaashii sitaan leeyihiin gaajaan haysay marka xaaladani xaalad aad iyo aad u qalafsan oo aad iyo aad u khatar badan weeye Soomaalidu waa dad aad iyo aad u degdega sababta ay u degdegaan waxa weeye dad baa waxay ku oranayaan hadda maalintii uu dhacay dadka la soo xirxiray ee la jaajgaray bisha 20keedii ahay 17keedii anoo maqaayad jooga ayaa waxaan is aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed aad iyo aad isku naqaan waxba ma jiraan wixii waa isku dhamaatay sheekadii dawladdu ma dhacdo no saahu fikirina dawladdu kayskeedu uu daahaya time buu qaadanaya laakiin waxa hubaala in dad badan oo Soomaaliyeed xabsi federaala loo dirayo taas waa inay niyad la wada geliya oo loo diyaar garooba wixii sharciya waxa la yiri seexeera loo xigtaa ilkana ku nabad gala dadka Soomaaliyeed yaani mar hadda wiilashaas kala dhalinyaradaas waa la yaab habeenkii maqaayada wiil kale la joogay oo hadda magaciisa ka xusay laakiin uu daawanaya hadda uu ku jira aniga wiilashii kala muranay wuxuu yiri Cabdixakiim baa idinka saxsan waxaan ku yiri bishaan gudaheeda October ama bishaan dhamaadkeeda ayay hawshu bilaabanaysaa isla subaxii ay bisha 20 ahayd ay dhacdo qofkii ugu horeeyay soo wacay hadda uu ku jira uu daawanaya uu ku jira qofkii ugu horeeyay ee soo wacay wuxuu ahaa wiilka wuxuu yiri Cabdixakiim maxaad ogeyd because qofkii bil aadiga waxa loo baahan yahay
inuu caqligan ka shaqaysiiyo marka ay ku leeyihiin Soomaalidu war inta millions of dollars maqan oo waliba program ciyaal lagu dhiibay yani maqan ma aydin la tahay in dawladdu yani wixii waa la jooji cidna lama hayo cadayna lama hayo kan lama hayo no saama dhicin waa inaynu u diyaar garowno duufaan xun ayaa ku soo socota community-geen maanta suuqa Karameel waa aragteen dukaamadu waa shutdown sayr bay wada ahaayeen dadku waa wada naxsan yihiin dadka qaarkiis ma haystaan maanta ma iga aaminaysaa dadka qaarkiis waxa soo lacag dhacay maanta dadka qaarkii ma awoodi karaan in ay qabsadaan lawyer ma sameyn karaan dad badan oo waxaa jira iyagu intay lacagta maanta qaateen xamar iyo Soomaaliya intay tageen Afrika guriga iibsaday laakiin maanta aan awoodi karin inay qabsadaan lawyer private public waxay raadinayaan lawyeradii kale public aha public defender bay raadinayaan marka meesha nidaam xuma dhacday Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga saaro community-geena Allah badbaadiyo dhibaatada kale ee soo socota ee aad looga baqayaa waxa ay tahay marka ay soo gasho lacagtii qayb masaajid kamida oo building yani diin lagu faafinayo quraan lagu dhigay ay soo gasho buildingkaas haday wax lacag oo halkaas galeen waxay noqonaysaa in buildingkaas laftiisa ay dawladda la wareegto Allahumma najayna Ilaahay naga qabto xaaladan xaalad wanaagsan ma aha dadka ugu dambeyn barnaamijka ma raba inaan ku sii dheeraado dadka 8daas qof ee Soomaalida iyo 6daas Oromada ee maanta dhamaantood waxa ay saxeen waraaqo tarjumaanintii meesha joogay ee Soomaaliyeed oo halkan magacooda ka sheegi karin oo ila shaqeeya iyo dadkii meesha jooga goob joog ahaa oo aad iyo aad isku dhowna hadda qaarkood newska ii soo dirayeen anigu maanta ma tagin ayaa joogay